amniga oo ay noognahay golaha wasiirada markii aynu ahayn in wasiiradii inaga horreeyay qaarkood yidhaahdeen ra-iisul wasaareyaasha qaar baa waxay yidhaahdeen kuna taliyeen Soomaaliya amnigeeda iyo ciidamadeeda in dib loo habeeyo wax laga qabto waxa ka dhow Soomaaliya inay nuclear samayso Soomaaliya maanta waxaynu ka marakacaynaa sanadkeenii saddexaad soo bandhigida qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad 3 sanadood iyo 3,000 oo wax qabad hase yeeshee mudane madaxweyne ummadda Soomaaliyeed dhegtaa guuxaysa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta halkan jooga waxay leeyihiin sanadka 2020 iyo shacweynaha Soomaaliyeed ee kale iyo golaha shacabkuba muxuu loo waabariisan doonaa sanadka 2020 waxa la sugayaa ma hirgelin karnaa haddii qorshihii horumarinta qaranka aynu dhammaystirnay haddii dib u habeyntii ciidamada wax weyn aan ka qabanay haddii arrimihii bulshada wax weyn aan ka qabanay oo aynu ognahay iskuuladii dawladdu inay gacanta ku hayso manhajkii dhawaan la bandhigay cusbitaallo maanta aynu inagu maamulnaa jiraan oo la soo noqonnay xuquuqul insaanka iyo konfenshannada ama heshiisyada looga baahnaaye waaweyn meel badan ka gaadhnay 57 sharci iyo siyaasadood ay xukuumadda ka meel mareen madaxweynuhu shuruuc badan saxeexay haddana saxeexi doono qaar kale oo kale ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed baa iskale waa inaynu talada shacweynaha Soomaaliyeed dib ugu celinaa madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhuna u yahay ummadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaadato iyagu cidii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo 5 sanadood oo dambe halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiinayno ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa haddii cid kale ay dooranayaan ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa laakiin innaga maxaa laynaga rabaa amnigii wax weyn haddaan ka qabanno suurto gelinay maya nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga haddaanu suurto gelinay arrimihii bulshada waxbaan ka qaban karnaa haddaanu suurto gelinay dhaqaalihii dib baanu u habaynay oo system iyo nidaam dunidu ku soo hirato oo ay nagu soo dhowdahay deen cafiskii dhawaan Mareykanku ay ogeedeen hawlaha waaweyn ee tallaabooyinka hore aan qaadnay ee hirgalaan haddana waan qaban karnaa doorasho hal qof iyo hal cod ah ummad yahayeynaan warwarin wuxuu yidhi hadraawi rag siyaasi wada noqoy wada furay silsiladaha hadba taanu suurayn yidhi anigu aan sax siyaasadda hoggaan baynu leenahay madaxweynuhu wuxuu inagu hagayaa dhaxalka uu ka tegayaana ay tahay in dalkan ay ka hirgasho 2020 ummad yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah kuna salaysan tartanka xisbiyada qaban waxaan si dhow ula socday doodii golaha shacabka ee sharcigii doorashooyinka annaga xukuumad haddaan nahay madaxweynuhuna siyaasadda inagu hogaaminayay wixii ra'yi iyo fikir iyo tale aynu haynay intaas sharciyaadkii inaga gudbay baynu ku ururinay annaga halkee loo socdaa dadka leh annaga halka loo socdaa sharcigaas baa inoola muuqatay oo golaha shacbiga noo gudbin golihii shacbigu waa ka dooday warwarkay iska daaya waxay idinku badinaysaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo xisbiya lagu tartamo waxaan idin xasuusinayaa 60kii hal doorkii Hargeysa uu hadhay 2 qof oo midna beelaha laga tirada badan yahay ah midna dadka deegaan ahaan aan ka soo jeedin Hargeysa ayaa ka soo baxay beelaha yaryar waxa ay ugu badinaysaa hal qof iyo hal cod waa arki doontaan haddii aan dareen ka qabno dhuwo goliga wax badan baan saxayaa maanta nin baan sheekaysano warbaahinta maxay ugu waxaysan baan ku wuxuu yiri niyahow dhuwo goligii baa laga guuray oo aad ka cabinayseeno monopoly baa loo socdaa war waxa waxba kama jiraan waxa uu suurto gelinayaa in talada Soomaaliyeed ay dadku yeeshaan annaguna haddaan nahay xaq u leenahay inaanu isharixi karno ka qayb gali karno tartanka talada Soomaalidu ay iska leedahay marka aynu ka shaqeyno in aynu ka wada shaqeyno haddaan suurto gelinay qorshihii qaranka haddaan suurto gelinay amnigii dhammaanteen inagoo isku dhan taariikh rag waa toli karaa taaka labadeeda 2020 in dadka Soomaaliyeed doorasho u tareera soo ballan nooma aha waa mahadsantihiin